ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab oo uu hogaamiyo Jimcaale Jaamac Takar ayaa waxay dowladda military ay maanta ka sameeyeen taliska ciidanka Danab ay ku leeyihiin cirifka koonfureed ee caasimadda maamulka Puntland ee Garowe. dowladda ciidanka Danab ayaa ku soo aaday hay'adda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedka Puntland ay maamulka la soo dhaafay hadal xanaf leh ay warbaahinta isku marinayeen. sidoo kale dowladda ay sameeyeen ciidanka Danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku soo aaday iyadoo booliis cusub lagu wareejiyay amniga magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in ciidamada ka amar qaata ay ku sugan yihiin deegaanada maamulka Puntland balse maamul goboleedka Puntland ayaa arintaasi dafiray iyagoo ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin. ciidamada ka amar qaatay dowladda federaalka Soomaaliya aysan ku sugnayn deegaanada maamulka Puntland. ciidamada Danab iyo kuwa BSF ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland ayaa hore ugu dagaalamay magaalooyinka Garowe, Boosaaso iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan maamulkaasi. waxaana dagaaladaasi ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac.